almihi saran seerka iyo saxarkii uu guurayo aqoonsigii uu sugmo warkii socoyo oo bixiye ciidan xoog lahaynaa cadowgana ku filan cabsi waanu kala tagno raggii soo caan baxaan madaxnimo u qurmeen calanka Soomaaliland xishuga guddida qabanqaabada xuska 18 May ee gobolka Togdheer ayaa si weyn ugu howlan dardargelinta xuska maalinta qaran ee 18 May iyagoona kala qayb galay bandhigyo waaweyn oo ardayda dugsiyada Qaadi Maxamuud iyo Dayaxa ugu diyaar garoobayaan munaasabada qaran ee 18 May ardayda ayaa sitay calanka jamhuuriyadda la aqoonsan yahay iyadoona ardaydu ay halkaasi ku soo bandhigayeen heeso wadani ah suugaan iyo hal abuur ay ku cabirayaan maalintan qaran iyo halgankii nafurnimada ahaa ee dalka loo soo galay 35 sano kadibna guulaha waaweyn gaadhay xubno ka mid ah guddida qabanqaabada xuska 18 May ee gobolka Togdheer ayaa ardayda uga warramay ahmiyadda ay maalintan qaran u leedahay jamhuuriyadda la aqoonsan yahay ee Somaliland aan weyneynaa insha Allah hadii alla ka dhigo run ahaantii ardayay waxaad ku soo muujiseen qarannimadeennii inaad kor u qaadeen inaad si fiican u soo abaabuseen waxaanan inoo rajaynayaa in uu ilaahay nabadqab iyo caafimaad inagu gaarsiiyo maalinta xuska 18 May waa maalin qaran insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa sidii lagu yaqaanay iskuulkiinuna inuu kaalintii uu gali jiray mid ka si fiican baa maanta galo maydan 35 waxay dheertay meeyadii hore waa mayna ila itiraafay sama ogidin waxaanan aad u jeclahay inaynu sii weyneyno sii muujino oo maaragtay ay naga muuqato inay maalintani tahay maalin inagu weyn maalin aynu muujinayno dareenkeena iyo sharafteena iyo maamuuskeena iyo karaamadeenna waa maalin aynu muujinayno maalintaynu dhidbanay calankeena aynu kala soo noqonay taliskii macangaga ahaa maanta dooxa ahaa ee umulayska ahaa ee ina baabiyey ee ina qaranjabiyey ee geesiyadeena iyo gabdhaheeniba xabaalay waa maalintaynu kala soo noqonay ninka tuhunsan Somaliland tamarmalow intaanad dibweyn taransan antala ku siiyeen waroy timir lafbaa ku jirta waxaan ku xusaynaa isagoo qof waliba calankiisa ka gacanta iyo ka hawshadaba uu soo qaato waxaan ku xusaynaa inagoo ardayda ay dareeskoodi sitaan in aynu maalinta aynu weyneyno ayaan u baahanahay si isku mid ah ayaa loo xusayaa hablaha aad bay u mahadsan yihiin si dareenkooda aad buu sareeyaa diyaargarowgooda aad buu sareeyaa calanku laba xushmo inaga mudan yahay xushmada koowaad waxa weeyaan waa calankii waddanka weeye waa calaamadeennii weeye waa astaanteennii weeye waa meel weyn bi naga yaallaa waanu ilaalinaynaa sidoo kalena waxaa ku qoran kelmaddii tawxiidka ayaa ku qoran iyaduna waxay nooga baahan tahay ilaalo gaara bay nooga baahan tahay ixtiraam bay nooga baahan tahay dhulka la dhigi maayo masquulada la geli maayo waxa weeyaa kor baa loo qaadayaa waxa weeyaa lagu fadhiisan maayo waxaasoo dhan waa maxay waynu ka yeelaynaa waayo waxa ku yaala magacii alle ayaa ku yaala ujeedada kormeerkana wuxuu yahay sidii aan idinku wacyigelin lahayn ama aan idinkula dabaaldegi lahayn xuska maalinta qaran ee 18 May oo ah 35 guuradii Somaliland ka soo wareegtay markii ay Somaliland xorriyadeeda kala soo noqotay wadankii la isku jiray Soomaaliya aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin si aad ugu diyaar garoodeen ee quruxda leh ee calaamaadka u seetaan ee maamulkiina iyo macallimiintu idinku beerinayaan inay qayb ka qaataan xuska maalintaasi qaran sidii ay ugu diyaar garoobi lahaydeen isla markaana maamuuskeeda ka muuqda waan idinku mahad celinaynaa waana idinku ammaanaynaa doorka muuqda ee ugu diyaar garoobaysa xuskaasi maalinta qaran waxaanu leenahay waa inaynu ka duwanaanaa degmooyinka kale ama gobollada kale maadaama gobollada iyo degmooyinku tartamayaan inaynu muujino karaamadii burca lahayd inaynu muujino qiimihii burca lahayd inaynu muujino halgankii burca lahayd ee laga soo bilaabay burco maskaxdii dunidu malaasan kala miirtay ee macnaysay maamkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka umbiciine mugdigii ka maydhay waxaa sidoo kale aynu nasiib u dheernahay magaalooyinka kala dalka iyo gobollada ama madaxda gobolka Togdheer Burco waa magaaladii laga dhawaaqay Somaliland inay dib ula soo noqotay xornimadeedii Abdullaahi Maxamuud Muuse Xudayfi telefishanka qaranka Somaliland Burco.